maxay tahay sababta ay dhalinyarada beesha dhulbahantay qaarkooda diidan Somaliland ay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac uga weerarayaan warbaahinta? maxay tahay qadiyada ay iska ilaaween ee ay ku beerdulucsanayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya? maxay tahay tilaabada uu qaaday ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac taasoo uu ammaan iyo bogaadin badan ku mutay ahna wixii uu dhaartay? muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan xogo xasaasi ah. fadlan daawade like saar muuqaalkan una share garee asxaabtaada, falowna soo dhee page-keena si aad noola socoto. sawirada ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa lagu faafiyay baraha bulshada iyadoo lagu eedeynayo inuu qalinka ku duugay in laascaanood ay Somaliland ka mid tahay qadiyada gobolka Soolna looga dambeeyo Somaliland. intaas kadibna waxaa dhalinyaro u dhalatay beesha dhulbahantay ay baraha bulshada ku faafiyeen sawirka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayagoo leh naaskii ku qabay kuna eedeynaya inuu fashilinayo kacdoonka shacab ee ka socda laascaanood. haddaba beesha dhulbahantay ma ku saxan yihiin inay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ku eedeeyaan inuu difaacay qadiyada Somaliland ee ku aadan gobolka Sool? jawaabtu waa maya, oo eedda ay u jeedinayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waa mid aan boos haysan oo cimrigeedii ka soo hormartay. waxaana ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac mar walba waajib ku ah inuu difaaco ilaaliyana dhulka iyo xuduudaha Somaliland, waana meesha uu ku matalo saami qaybsiga dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa qaaday tilaabo ka farxisay dadka jecel jiritaanka Somaliland, waxaana la xaqiijiyay in xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac uu ka shaqeeyay sidii beesha caalamku ay Somaliland uga qaadi lahayd cadaadiska ay ku saartay rabshadihii ka dhacay gobolka Sool, gaar ahaan laascaanood. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa safaaradaha xalane degan kala hadlay in qadiyada halkaas ka taagan ay tahay mid fudud oo ay sahlan tahay sidii loo dhammayn lahaa loogana dambeeyo Somaliland. Saalax ayaa u muuqda mid si fiican u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee uu ku matalo Somaliland, waana intii laga fiirin lahaa mas'uul walba oo matala Somaliland. daawade adiguna sidee u aragtaa qaybta hoose nagula wadaag fikirkaaga.